بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a follow on issuance si aan u fahanno waxaan u baahannahay inaan marka hore dib u xasuusanno initial public offering ee loo soo gaabiyo IPOs waana marka ugu horeysa oo ay shirkad soo saarto saamiyaal si ay lacag uga hesho maalgashatada kala duwan iyagoo lacagtan u adeegsanaya inay ku ballaariyaan waxqabadka shirkadda xog dheeraadana waxa aad ka heli kartaa lifaaqa hoose oo aan hadda kahor uga soo hadalnay haddaba waxa dhacda in lacagtii laga helay saamiyadii koowaad ee IPOs-ka ahaa oo ay shirkaddii soo saartay inay shirkaddii lacagta ku yaraato oo ay u baahato lacag dheeri ah haddaba saamiga kale ee la soo saarayo ayaa waxaa loo yaqaanaa follow on issuance si kale haddaan u dhigno waa saami la soo saaray kadib marka la soo saaro IPOs-ka ogowna waxaa jirta magacyo kala duwan ee loo yaqaano saamiga labaad sida follow on issuance ama secondary offering ama seasoned equity offering magac ahaan way kala duwan yihiin balse waa isku macne ujeeddada loo soo saarayo saamigan labaad waa in la helo lacag cusub si sare loogu qaado ama loogu horumariyo waxqabadka shirkadda si in lagu maalgeliyo mashruuc cusub ama lagu dhammaystiro mid hadda socda iyo wixii la halmaala haddaba si aan iskula fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno shirkaddan lagu magacaabo ABC ayaa hadda ka hor soo saartay IPOs si ay uga hesho maalgashatada lacag dhan 100 milyan waxa ayna gaday saami waliba $100 tilaabadan way hirgashay wayna guuleysatay hadda sanad kadib kobacii shirkadda waxa uu noqday mid heer sare ah oo hadda shirkadda waxa ay rabtaa lacag dheeri ah si ay ugu soo iibsato shirkad kale oo yar oo ay wada loolamaan ama tartamaan shirkaddan ABC-na ma haysato lacagta marka shirkadda waxa ay go'aansatay inay soo saarto saamiyaal cusub ee loo yaqaano follow on issuance waxa ayna rabtaa calaa saami inay gado $120 tirada saamiyada cusubna waa 1 milyan haddaba shirkadda haddii rabitaankeeda uu u meel maro waxa ay haysanaysaa 120 milyan midaas oo ku timaaday $120 haddii aan ku dhufano milyan waxa ay noqonaysaa 120 milyan saamiyadan cusubna waxaa gadan kara cid waliba oo rabta ha ahaadeen maalgashatada hadda jirta ama kuwa cusub shirkadda ABC-na lacagta ay ka hesho saamiyadan waxa ay ku ballaarin kartaa waxqabadka shirkadda midaas oo sare u qaadaysa qiimaha shirkadda gunaanad follow on issuance waa saamiyada la soo saaro kadib marka la soo saaro IPOs ama initial public offering saamiyadanna waxa ay awood u siinayaan shirkadda inay lacag dheeraada ka hesho maalgashatada si ay waxqabadka shirkadda ugu ballaariyaan xog dheeraada oo ku saabsan merger and acquisition iyo investment banking waxa aad ka heli kartaa lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor uga soo hadalnay mahadsanidin waa inuu mar kale haddii rabbi idmo